Okay, trade-kan waxaa u qaatay dhanka iyo lower option ayaa u qaatay. Sababta u qaatana wax kale maahan. Saa u jeedno candle-kan wuxuu ku xirnay below 50% line. Haddii aan idin bidhaamiyo 50% line-ka, waa kana suuqan waa ujeedaa candle-kan xoogan wuxuu soo jabsaday order block ayuu soo jabsaday sidoo kale intood 50%giisa halkan ayuu ahaa 50% line. sidoo kale intood waxaa noqday breaker block. sida u taqaaniin breaker block ani ayaan ruuxa idin sheegay 95% suuqan haddii breaker block la imaado in suuqan retracement salaries uu imaan doonaan. So marka waxaan filayaa marka in suuqan most sellers ay halkan kasoo geli doonaan insha Allah. Sidaas ayaan ugu qaatay dhanka iyo lower option. Reason kale ma ugu qaadanba. Waa ujeedaa candle-kan waa very strong candle. sidoo kale intood wuxuu soo taabtay breaker block ayuu soo taabtay. saa ujeedno suuqu waa M5 waaye meeshan suuqa ka analyze gareyna waa M5 waaye. sidoo kale intood 1 minute ne waxaan ka qaatay trade-ka ayaan ka qaatay. So marka aynu isla eegno insha Allah daqiiqada soo socda iyo waxa ka dhaca halkan. saa ujeedno suuqa waxa uu ahaa strong downtrend ayuu ahaa. sidoo kale intood waxaa halkan imaaday 3 candle oo red candle ah oo aad iyo aad u xoogan ayaa imaaday. marka void ayaa lasoo buuxinaya 50% line ah oo candleskan xoogan ah. وبعدين suuqan waxa uu sii jeesan doonaa dhanka iyo lower option ayuu soo jeesan doonaa. sidoo kale intood M1 ka marka imaadid halkan waxaa kaaga muuqda double top pattern ama M pattern. M pattern kan candleskan xoogan markay imaadeen 50% line waa halkan aan dhigtay horizontal line-ka. وبعدين halkaas ayaan kasoo qaatay waxaynu aragnaaba waxa uu suuqu ku dhamaaday insha Allah. haddaba waxaan ka codsanaa janaalka inaad subscribe saartid sidoo kale intood aad la gelisid muuqaalkan waxaan ugu talagalay inaa wax uun ka faa'iidaan insha Allah. maxaa yeelay suuqan aniga waxaan kusoo jirnay muddo aad u badan cid macluumaadkan ila wadaagtane ma aysan jirin oo Soomaali ah. laakiin alxamdulillah waxaa haystaa qof kula wadaaga oo mar walbo kugu dhiirigeliya inaad straight direction u qaadato suuqan. okay janaalkan waxaan kusoo upload gareeyaa vlogska iyo sidoo kale intood tradeska aan qaato khaasatan IQ option kan. waxaan ku rajeynayaa inaad horumar iyo baraare aan wada gaarno dhammaanteenba insha Allah. waxaynu maraynaa candle-kii u dambeeyay. saa u jeednabane waxaa halkan imaaday salaries aad iyo aad u xoogan ayaa halkan soo galay. daqiiqadihii afraad wax yar ayaa nooga dhiman insha Allah. waxaan rajeynaynaa inuu guul noogu dhamaado insha Allah. directionka suuqa mar walba waa muhiim sidoo kale intood aqoontuna waa muhiim. waxaa laga yaabaa in aad khasaartid laakiin khasaarahaas ma ahan mid akoonkaaga aad ku lose gareynaysid maalin walba. ani maalinta waxaan qaataa only one trade ayaan qaataa. maanta waxaan ku galay cadad aad u yar ayaan ku galay laakiin dhib ma lahan. maalmaha kale ayaan fiirin doonaa insha Allah. maxaa yeelay suuq markuu candleskan xoogan uu sameynayo mararka qaar wuu xun yahay. so riski inaad qaadatid waa laga fiican yahay lacagtaada aad wada geliso meel aadan aqoonin. marka waxaan isticmaalay money management soo ma. saa u jeedina waan weyn gareynay. waxaan idin rajeynaa horumar iyo baraare insha Allah. so sidaan camal sameeya suuqa $3 u geli jiray maadaama suuqa uu xun yahay kala bar ayaa ka dhigtay anigoo isticmaalaya money management. bye.